waxaan rabaa inaan halka uga faro iyagoo raacaya nidaamyada adduunka dalal badan oo federaal oo waxaa jira laba lacagood kala leh macnaheedu ma Soomaalnimada inaan ka baxnay laakiin waxaan rabaa Puntland lacag ay leedahay inaad daraasadeeda bilowdaan oo raadisaan muddaan sugeynay in dawladda mid ah shilin Soomaaliya oo midaysan la sameeyo ma muuqdo marka maanta go'aankaas ayaa dawladdu waayadanba ka shaqaynaysay daraasadeeda socota waxaan rajaynaynaa muddo gaaban oo inta 2025 lagu jiro haddii Ilaahay idan ka dhigo in la helo lacag Puntland ay leedahay oo hadhow la jaan qaadi doonta nidaamka maaliyadeed ee Soomaaliya markii miyirka iyo maskaxdu soo noqoto oo dad Soomaaliyeed oo is ogol oo nidaam waaxid yeeshaan marka arrintaas waxaan rabaa in hoosta laga xariiqo shaqadii awoodeenna la dedejiyo